kulanti wacan wanaagsan daawadayaal bilahantiinba halka aad naga daawanaysaan waa janalka Som TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada warka madaxdiisii dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in Djibouti Kenya ay ku taageertay faragelinta arrimaha Soomaaliya madaxweynaha Hirshabelle oo beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka maamulka koonfur galbeed oo sheegay in ay dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab madaxweyne farmaajo oo qaabilay wasiirka difaaca Ingiriiska booliska Soomaaliya oo sheegay in la qabtay nin kufsi iyo dil geystay madaxweynaha maamulka goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftigareen oo dib ugu laabtay Baydhabo kana hadlay dagaalka al-shabaab intaas waxa ay qodobada warkeena ugu door karona haatan ku soo dhawaada asagii oo intaas ka faahfaahsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe inoo sar haddii hore aad noola joogtana waad ku maasantahay la joogaaga videoga like inoo sar xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in guddiga xaqiiqo raadinta ee loo xil saaray arrimaha khilaafka Soomaaliya iyo Kenya iyo xaaladaha ka jira xuduudka labada dal ay ka been sheegeen halka uu salka ku hayo khilaafka Soomaaliya iyo Kenya guddiga oo ka kooban 7 xubnood oo isugu jira hal xubin oo ka socota urur goboleedka IGAD iyo 6 xubnood oo ka socota dowladda Djibouti ayaa IGAD waxa ay u xil saartay in lagu ogaado xaaladaha ka jira xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca gobolka Gado ee sababay khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa sheegay in guddiga ay noqdeen kuwa hal dhinac ah oo gudbiyay hadallo ay ka soo xigteen wasiirka gaashaandhigga Kenya Monica Juma waa kan wasiir Dube oo arintaas ka hadlay 10 December waa kii xumaaday calaaqaadka Soomaaliya iyo Kenya wanagii u yeeranay danjiraheennii iyo safaaradda tiimkii naga joogay calaaqaadkiina waynagii hoos u dhignay intaa kadib waa tii la isugu tagay shirkii Djibouti ee madaxda IGAD shirkaa waxaa la saaray guddi xaqiiqo raadina oo warbixin ku soo celiyay IGAD waxaan idinku yeelay maanta warbixintii oo soo baxday warbixinta IGAD ee soo baxday aad bay Soomaaliya u soo dhaweysay markii loo xil saaray dowladda Djibouti ee walaalaan nahay in ay arrinta gasho iyadu oo ay xaqiiqo raadis noqoto oo ay soo aruuriso xogta riboodkii uu soo baxay riboodka waxaa hogaaminaya 7 xubnood oo ahaa guddida xaqiiqo raadiska waxay ahaayeen 6 reer Djibouti ah iyo xubin ka socotay IGAD 6 reer Djibouti waxay ahaayeen ambassador Yaasin Cilmi Buux oo ah safiirka Djibouti u fadhiya Kenya ambassador Aadan Xasan Aadan Belelo oo ambassadorka Djibouti u fadhiya Soomaaliya General Daahir Cali Maxamed oo ah general ka tirsan ciidamada Djibouti Colonel Cali Aadan Colonel Maxamed Barqad Colonel Hussein Idris iyo xogayaha oo ka socday IGAD riboodkii soo baxay dowladda Soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo amankaag iyo qaadan waa wax aan loo fadhiin oo aan la filahayn wuxuu ka hadlayaa riboodka ama warbixinta ay guddidu soo saareen waxa la wixii Soomaaliya ay dibsanaysay ee ay sheegatay guddidii xaqiiqo raadinta ee Djibouti ka socotay waxay ka soo saareen xukuma jira airspace-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay waxay yiraahdeen Soomaaliya khaldanaydoo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa dadka qaada iyo kuwa ciidanka iyo kuwa waxaan loo diray waxay ka hadleen ciidamada Kenya inaana imanin dhulka Soomaaliya waxay qoreen inay arrintu tahay arrin hore oo Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysay ee aanay ahayn arrintan hadda keentay علاقات كلها شرعي وحي استعمالين وحي يراهدين the long standing grievances Djibouti Soomaaliya iyo ka dhaxeeya Kenya ma jirin marka laga reebo arrinta badda arrintaana runtii arrin gafa
oo la khalday bay ahayd waxay kaloo ka hadleen inaanay ciidamada Kenya ee AMISOM qaybta ka ahi ka bixin deegaano muhiim ah oo lagu dhibaateeyay markay ka baxeen dadkii Soomaaliyeed ee gobolka Gedo gaar ahaan Buusaar iyo Faxfaxdhuun iyo deegaanadii aynu ka soo sheekeynay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Gudlaawe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan dhinaca khadka internetka la yeeshay xubno ka tirsan beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya xubnaha beesha caalamka oo horkacayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa waxa madaxweynaha Hirshabelle kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha Hirshabelle kulanka ayaa si weyn waxay uga wada hadleen labada dhinac muhiimadda wada hadalka oo uu leeyahay baahida degdega ah ee loo qabo hogaamiyaasha siyaasadeed ee uu dalka ay xal uga gaari karaan khilaafka la xiriira doorashooyinka laamaha ammaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal ciidan oo ka dhacay deegaan ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kaas oo la sheegay in lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab howlgalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Saydeelow 30 kiiloomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Baydhabo waxaana howlgalka si wada jir ah u fuliyay ciidamada booliska dowladda Soomaaliya iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed taliyaha ciidamada booliska Koonfur Galbeed Colonel Cabdi Ibrahim Shamow ayaa sheegay in ay ka hortageen go'doomin ay Al-Shabaab la damacsanayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay howlgal ay ku baxeen deegaanka Saydeelow duleedka degmada Baydhabo ay isku aruursanayaan kooxihii nabadiidka ah argagixisada ay isku aruursanayaan halkaas iyagoo doonayo oo damacooda ahaa inay dhibaateeyaan shacabka muslimiinta ah Soomaaliyeed xamaalinaya danahooda oo magaalada maxay ahayd soo adeeg doonanaya ee halkaas ay isku aruursanayaan laga war helay inay magaaladaas ay rabaan inay dhoono qabateen ay ku bilaawaan waan ka war helnay ciidanka qalabka sida qaybahooda kala gedisan xooga dalka nabad sugidda ciidanka booliiska Soomaaliyeed daraawiishta Koonfur Galbeed si wada jir ah aan ku baxnay waxa halkaas ka dhacay dagaal waxa halkaas lagu dilay kooxaha argagax 7 xubnood ay mas'uuliin ku jiraan gudoomiyaha deegaanka Saydeelow iyo 20 jiro gudoomiyaha ugu qaabilsanaa dhaqaalaha Saydeelow iyo 20 jiro ay ku sheegan taliye ay u qaabilsanaa ayagan labadaas meelood saddexdaas xubnood mas'uuliinta ah waa la dilay meedkooda waa aragtaan waxa kale oo hub gacanta lagu soo dhigay ilaa 5 qori AK47 ah tirada dhimashada xaggooda waa 7 4 maleeshiyaad way iyo saddexdaas mas'uuliinta ah wixii kalena waa kala firdhoodaan ciidanka ilaa howlgalka hadda waa socdaa waa ku daba maqan yihiin wixii maxay ahayd maxbiis ahna waan haynaa oo nolol lagu soo qabtay waana soo bandhigi doonaa insha Allah waxa kale fariin u diraya dhalinyarada Soomaaliyeed la maran habaabiyay oo ka nabadiidka ah oo dadkooda ay ku dhiban rabaan ha iska dhaafaan ha ka waantowaan howlgalkan wuu bilowday Koonfur Galbeed meel kasta ka bilowday Bakola ka bilowday Baaya ka bilaabay shabeellada hoose waa si soconayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirka difaaca boqortooyada Ingiriiska Ben Wallace oo uu wehelinayo safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya mudane Ben Fendor madaxweyne Farmaajo ayaa la wadaagay wasiirka qorshayaasha hirgalay ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka xaqiijisay hanaanka dib u dhiska ciidamada amniga dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada Al-Shabaab wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji oo kulanka ka qayb galay ayaa ka warbixiyay wada hadallada miradhalka ah ee dhaxmaray labada dhinac iyadoo la isla qaatay adkeynta iskaashiga labada dal ee dhanka amniga iyo la dagaalanka argagixisada taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay nin kufsi iyo dil kaam ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ugu geystay gabar 8 sano jir ah afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Saadaq Aadan Cali ayaa sheegay in shalay oo ku beegneed 26 bisha Janaayo nin magaciisa lagu sheegay Daahir Maxamed Qaasim laakiin magaciisa rasmiga uu yahay Bashiir Maxamed Qaasim uu kufsi dil
uu ka geystay kaam ku yaala duleedka magaalada muqdisho. waxa uu sheegay afayeenka dambiilaha kufsiga iyo dilka isugu daray gabar 8 sano jir ahayd oo xilligaas ku sugnayd kaamka saddex buurood ee ku yaala inta u dhaxaysa deegaanada Xaawo Cabdi iyo Calamada. waa kan afayeenka oo ka hadlay arrintaas. gacanta ku soo dhigeen wada shaqayn iyo iskaashi ka dhaxeeyay ciidanka booliiska saldhigga ciidanka booliiska ceelasha biyaha iyo maamulka deegaanka Lafoole oo Galbeedka taagan iskaashi iyo wada shaqayn ay ka sameeyeen aagaas ayaa gacanta lagu soo dhigay eedeysanihii falkaas ku kacay oo falkaas geystay. eedeysanaha ayaa hadda ku sugan xarunta baarista ee CID xarunta baarista dambeeyay CID halkaas oo lagu dhameystirayo baarista kiiska la xiriirta si isla markaa loogu wareejiyo maxkamadda awoodda u leh isla markaana uu dhadhamiyo cadaaladda oo iyo falkii uu u geystay gabadhaas saqiirka ee eedeysanaha ee dhibanaha ahayd. sidaas daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa in dambiile kasta oo gala fal dambiyeed dhibaateeya qof muwaadin ah ama qof ku nool geyga jamhuuriyadda mar uu cadaaladda u dhadhamin doono. waxaad ogtiin hadda koor kuwa fal noocaas iyo kuwa la halmaalo geystay oo magaalada ka baxsaday caasimadda ah ee gobolada dalka tagay in la soo qabtay oo cadaaladda la marsiiyay. sidaas si leeg eedeysane Bashiir Maxamed Qaasim wuxuu wajihi doonaa maxkamadda awoodda u leh si uu cadaalad u maro. waa mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. madaxweyne Cabdicasiis ayaa maalmihii la soo dhaafay safar uga maqnaa dalka Turkiga isagoo sidoo kale dhawaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee xaalada adag oo go'doomina ay ka jirto. soo dhaweyn kadib madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay xaaladaha amniga ee deegaanada maamulkaas iyo howlgallada ugu dambeeyay ay fuleen ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed. waxa uu u hambalyeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed howlgalkii ay ka fuliyeen deegaanka Saydheelow ee gobolka Bay halkaas oo la sheegay in lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. ugu dambeyn madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab isaga oo sheegay in dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ay u diyaarsan tahay la dagaalanka Al-Shabaab. warkii aad ka daawanaysan TV-ga Som TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waa inaga inta warka waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Cabduqaadir Xasan Cali. nabaadiino.